Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena Bakeeri Films. Ma qiyaasi kartaa adigoo nool in dadkoo dhammi ay ku haystaan inaad dhimatay? Muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa filimkeena naxaynta leh ee Afterlife, halkaas oo gabadh dhalinyaro ah ay ku dhex go'doonsan tahay qolka meydka, iyadoo isku dayeysa inay ka baxsato nin u sheegaya inay dhimatay, laakiin iyadu ay dareemayso inay weli neefsanayso oo ay nooshahay. Ha isdhaafin muuqaalka sababtoo ah ma qiyaasi kartid daawaday dhammaad filimkeena. Filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa maamulaha aaska Elliot Deacon kaas oo leh xarunta dadka dhintay lagu diyaariyo aaskooda. Qayb ka mid ah howl maalmeedkiisa wuxuu u diyaariyaa meydadka aaskooda isagoo si hoose ula hadlaya. Hadda waxaa la arkayaa isagoo diyaarinaya jirka macallin hore oo biyaanista ah. Kadib waxaa u gudbaynaa macallimada dugsiga dhexe Anna Taylor oo waqti la qaadanaysa saaxiibkeed Paul. Inkastoo uu jawigu yahay mid jacayl haddana uma muuqato inay gebi ahaanba ku raaxaysanayso. Mar dambe isagoo quwaysanaya, Paul ayaa wax ka weydiinaya arrinta, laakiin waxay ku adkaysanaysaa inay fiican tahay, inkastoo muuqaalkeedu sheegayo wax ka duwan. Kadib Anna waxay aadaysaa shaqada, halkaas oo ay ku aragtay laba wiil oo waaweyn oo xoog u sheeganaya ardaygeeda yar Jack. Way canaanataa oo isla markiiba way ereysaa iyaga. Shaqada kadib Anna waxay ka baxaysaa dugsiga markii ay nalalku bilaabeen inay marna damaan marna daarmaan. Inta lagu jiro marinka, iyadoo baqaysa ayay si argagax leh ugu cararaysaa dhinaca albaabka laga baxo, laakiin waxay aragtay albaabka oo xiran. Xilligaas adag inta lagu jiro, Jack ayaa soo muuqda oo si fudud u fura albaabka, isagoon wax dhib ah ka marin. Haddaba habeenkaas Anna waxay ka qayb gashay aaska macallinkeeda hore ee biyaanada ee lagu qabtay goobta Elliot. Markii uu dhawaatay meydka waxay aragtay isagoo dhaqaajinaya afkiisa, taasoo ay naxday, laakiin markii ay mar labaad eegtay waxay aragtay inuu iska caadi yahay, waxayna ogaatay inay iyadu suuraysanayso. Haddaba habeenkii dambe Anna waxay aadaysaa inay kula kulanto Paul maqaayad qaali ah si ay u wada casheeyaan. Inta ay casheynayeen wuxuu u sheegay in loo dalacsiiyay xarunta dhexe ee shirkadda, sidaas darteedna uu u guurayo Chicago. Kadibna wuxuu jeebka kala soo baxay faraanti isagoo damacsan inuu guur ka codsado oo uu ka haysto xaggaas, laakiin ka hor inta uusan sidaas samayn Anna waxay bilowday inay doodo iyadoo u malaynaysa inuu rabo inuu xiriirka halkaa ku jaro. Paul wuxuu isku dayaa inuu u sharaxo xarunta, laakiin way ka carootay iyadoon dhageysanayn. Waxay gaariga ku kaxaysay xaalad murugo leh, waxaana dhexda ku helay roob miyigaan ah, taasoo keentay inay gaariga shil ku gasho. Muuqaalka xiga waxaanu ku aragnaa Anna oo saaran miiska lagu diyaariyay meydadka ee xarunta aaska, iyadoo weji bararsan leh iyo nabar fooda kaga yaal. Muddo yar kadib Elliot ayaa soo galay oo bilaabay inuu diyaariyo iyada. Markuu u gudbay inuu dharka ka siiba, Anna waxay furaysaa indhaheeda waxayna weydiisay halka ay joogto. Elliot isagoo degan oo cabsi ku jira ayaa ugu jawaabay inay dhimatay oo ay ku jirto xarunta aaska. Wuxuu sidoo kale xasuusiyay inay isku dhaceen gaari xamuul ah oo siday dhuumaha birta ah, taasoo keentay inay dhimato 8 saacadood ka hor. Iyadoo wareersan oo argagaxsan, Anna weli ma aaminsana inay dhimatay, inkastoo maamulaha aaska uu xaqiijiyay inay ku jirto oo kaliya marxalad kala guur ah oo ay ugu gudbayso nolosha dambe. Dhanka kale, Paul wuxuu ka tusay guriga wuxuuna isku dayay inuu la xiriiro saaxiibtiis marar badan. Si kastaba ha ahaatee, alaabtii Anna hadda gacanta waxay ugu jirtaa Elliot, kaas oo aan tixgelin wicitaanka oo dhigaya armaajo keyd ah oo ay ku jiraan alaabta meydad kale. Isagoo ku daalay wicitaankeeda, Paul wuxuu aaday guriga hooyadeed si uu u weydiiyo meel ay ku dambayso. Waxaa lama filaan ku noqotay markii hooyadeed ay u sheegtay shilkii naxaynta lahaa ee horseeday dhimashadeeda. Intaa waxaa dheer waxay ku eedeysay isaga inuu u ogolaado inay gaariga kaxayso jawigaas xun dhexdiisa. Dhanka kale, Elliot wuxuu tolay nabaradii Anna, iyaduna way la yaaban tahay inay dareemeen xanuun. Waxay weydiisay arrintaas, laakiin wuu iska indhatiray, wuxuuna ku muday daawo suuxisa oo la yiraahdo hydromium bromide, taas oo uu ku sheegay inay dejinayso muruqyadeeda. Muddo kadib Anna hooyadeeda oo ku fadhida kursiga curyaanka ayaa timaada xarunta aaska si ay u aragto, iyadoo oonayso leh, waxayna la hadlaysaa jirka Anna iyadoo weydiinaysa qofka hadda daryeeli doona. Ka hor inta aysan bixin, waxay ka codsanaysaa Elliot inuu timaha u celiyo midabkooda dabiiciga ahaa oo bunniga ahaa. Mar dambe Anna waxay soo toosisaa iyadoo aragtay inay kaligeed ku tahay qolka. Waxay urursataa xog ku filan oo waxay u fariisataa si toosan. Markaas ayay u kacaysaa dhanka telefoonka, laakiin ma shaqaynayo. Isla markaasna Paul ayaa ka soo muuqda xarunta aaska, wuxuuna ka codsanayaa Elliot inuu u ogolaado inuu arko saaxiibtiis. Inkastoo uu quus joogo, maamulaha aaska uma ogolaanayo inuu galo sababtoo ah ma laha xiriir sharci ah oo ay isku leeyihiin. Markay maqasho codka Paul, Anna way qeydisay waxayna garaacday albaabka, laakiin dadaalkeeda ma noqon mid la dareemo. Paul ayaa markaas aaday saldhigga booliiska si uu ula kulmo saaxiibkiis Tom, isagoo rajeynaya inuu wax u qaban karo si loogu ogolaado inuu galo xarunta aaska. Si kastaba ha ahaatee, sarkaal booliis ayaa u sheegay in Tom uu aaday shaqada roondada uuna dhawaan soo laaban doono. Isla waqtigaas Paul wuxuu gelayaa meesha baabuurta shilka gala la geeyo ee booliiska, wuxuuna dhex fadhiistaa gaariga Anna ee burburay. Inta uu ku jiro gaariga wuxuu suuraysanayaa saaxiibtiis Anna, taas oo ay markiiba ay kala goynayso soo muuqashada Tom. Paul ayaa ka baryay inuu wax u qabto si uu u fududeeyo gelitaanka si uu u arko Anna, laakiin ninka kale waxba kama qaban kara arrintan. Dhanka kale, Anna waxay wareegaysaa qolka dhexdiisa waxayna helaysaa meyd kale oo dul yaal miiska. Iyadoo aan rabin inay ku dhamaysato masiirkaas oo kale, waxay qabsanaysaa maqas waxayna sugaysaa Elliot. Isla markii uu soo galay waxay uga hanjabaysaa inay dili doonto, laakiin Elliot uma muuqan mid naxsan. Wuxuu u sheegay inay
awoodi weyday inay dhib u geysato sababtoo ah mar hore ayay dhimatay. Aana waxay ku dooday iyadoo weydiinaysa sida ay ula hadli karto haddii ay dhimatay. Markii sheekadu halkaa marayso, adigoo yaaban ayaa muuqaalka like saartay, channelkana subscribe tiraaday. Daawad haddii muuqaalka like noo saarin, like noo saar, channelkana subscribe noo dheh si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. Aanu soo laabana filmkeena. Elliot wuxuu shaaca ka qaaday inay awood u leedahay inay la hadasho isaga sababtoo ah wuxuu u leeyahay hibo kartida uu kula xiriiro dadka dhintay. Wuxuu kale u soo jeedinayaa inay ka quusato nolosha sababtoo ah aaskeedu wuxuu dhacayaa 3 maalmood kadib. Waxaana la gelin doonaa naxash waxaana la aasi doonaa weligeed. Muuqaalka xiga Elliot wuxuu diyaarinayaa meedka islaan duqa aaskeeda isla markaana waxaa ku soo biiriyay Jack kaas oo u muuqda inuu wax ka og yahay dhimashada Anna. Wiilka ayaa wax ka weydiiyay macluumaadkiisa Anna taas oo Elliot ugu jawaabay in aaskeedu yahay Jimcaha uuna ka codsanayay inuu hadda ka tago meesha. Subaxdii xigtay Paul wuxuu maqlayaa codka xamaasadda leh ee Anna wuxuuna sidoo kale arkay iyadii isaga oo si wada jir u quweysanaya. Si kastaba ha ahaatee wax yar kadib wuxuu ku satoosay hurdadii isagoo ogaanaya inay ahayd riyo uun. Dhanka kale Elliot ayaa u soo noqda Anna isagoo u sidaa dharka ay xiran lahayd aaskeeda. Inta uu mashquulsan yahay waxaa si qarsoodi ah uga xaasaa jeebkiisa furayaal. Wax yar kadib markii Elliot uu baxo uuna isku dayay inuu meedkale ka soo qaado isbitaalka, Anna waxay si degdeg ah u isticmaashaa furayaashii ay ka xaday waxayna isku daydaa inay furto albaabka. Elliot wuxuu istaagayaa kaalinta shidaalka si uu taangi u buuxiyo waana markaas markuu ogaaday in furayaashii laga xaday. Markaasuu si degdeg ah ugu soo laabtay xaruntii aaska. Inta ay taasi jiddo Anna waxay ku guuleysatay inay furto albaabka waxayna wareegaysaa dhismaha dhexdiisa. Wax yar kadib waxay la kulantaa qol uu ku yaalo telefoon. Si degdeg ah ayay u garaacdaa lambarka Paul waxayna bilowdaa inay ku duceystay inuu ka qabto. Kadib markuu muddo dheer dhacayay wuu ka qabtay wicitaanka laakiin isla markii uu ku damiyay isagoo u haystay inuu suuraysanayay khiyaal kale. Isla markaasna Elliot ayaa helaya waxayna iska fiirinaysaa muraayadda dhexdeeda iyadoo u muuqaal eg meyd. Tani waxay ugu dambeyntii ka dhigtaa inay rumaysato inay dhab ahaantii dhimatay. Isla waqtigaas Jack oo taagan guriga hortiisa ayaa arkaya Anna taasoo ku reebtay naxdin. Intaas waxaa dheer dhacdo kale oo laga naxdin qaba ayaa dhacaysa. Anna waxay ku neefsanaysaa muraayadda horteeda taasoo keentay in neeftu ay sababto ceeryaamo. Si kastaba ha ahaatee Elliot si xariiftinimo leh ayuu u tirtirayaa ka hor intaysan arkin. Hadda oo ay ku qanacday dhimashadeeda Anna waxay joojisay iska caabintii ay kala hortagi jirtay Elliot diyaarinta jirkeeda mana siiso wax muhiimad ah waxyaabaha uu ku mudayo. Maalintii xigtay Paul wuxuu aadayaa dugsiga Anna si uu u soo ururiyo alaabteedii. Markuu qarka u saaran yahay inuu baxo waxaa salaamay Jack kaas oo u sheegay inuu Anna ku arkay xarunta aaska iyadoo xiran dhar cas xalay. Paul ma rumaysanayo wuxuuna ku adkaysanayaa inay dhimatay laakiin markii wiilku uu sheegay inuusan si ku filan u jeclayn Paul wuxuu noqday mid aad u caraysan ilaa uu u dharbaaxo Jack dadka hortooda. Xarunta aaska sarkaal boolis ayaa u yimaaday jirka walaalkiis oo dhintay inuu arko kaas oo lagu hayo isla qolka Anna. Markaasuu Elliot ka codsanaya inuu kaligiis uga tago walaalkiis muddo daqiiqada ah. Markii uu maamulaha aaska baxay ujeedada dhabta ah ee sarkaalka ayaa noqotay mid muuqata isagoo u dhowaanaya jirka qaawan ee Anna laakiin markii uu qarka u saarnaa inuu taabto Elliot ayaa soo galiyay wuxuuna ka codsanayaa inuu baxo. Kadib Jack ayaa mar kale soo booqda xarunta aaska isagoo u sheegaya Elliot waxa uu arkay maalin ka hor. Isagoo ugu jawaabaya Elliot wuxuu si degan u yiri inay labadu wadaagaan awood isku mid ah oo ay kula xiriiri karaan dadka dhintay. Isagoo guriga u sii socda Paul wuxuu si lama filaan ah u xasuustaa dharkii casaa ee Anna xirnayd habeenkii ka hor intaysan dhiman. Tani waxay kicisay shakigiisa ah in saaxiibtiis laga yaabo inay weli nooshahay. Wuxuu u cararaa xarunta aaska isagoo dalbanaya inuu arko laakiin Elliot waa diiday. Markan Paul wuu iska indhatiray wuxuuna xoog ku galay gudaha isagoo u yeeraya Anna. Wuxuu sii wadaa raadinteeda ilaa maamulaha aaska uu ugu hanjabay inuu u yeerayo booliiska. Paul wuxuu markaas aadaa saldhigga booliiska wuxuuna u sheegayaa Tom inay saaxiibtiis weli nooshahay. Wuxuu kaloo qiyaasayaa in Anna la siiyay dawooyin badan taasoo gaabisay garaaca wadnaheeda heerka ugu hooseeyay. Si kastaba ha ahaatee saaxiibkiis ma rumaysanaya maadaama uusan haysan wax caddayn ah oo taageeraya sheegashadiisa. Mar dambe Elliot wuxuu Anna u xiraa dharkii aaska iyadoo ay labadooda yeeshaan sheeko qoto dheer. Waxay qaratay inay weligeed ku faraxsaneen nolosheeda aysan awoodin inay Paul u jeclaato si kale iyo laab ah. Si kastaba ha ahaatee hadda wax walba way ka qowmeynaysaa. Muuqaalka ayaa markaas u wareegaya maalinta aaska halkaas oo Elliot uu Anna gelinayay naxashka isagoo u diyaar garoobaya inuu ku mudo suuxiso waxay codsanaysaa inay is aragto markii u dambeysay. Markaas uu qabtay muraayad yar intays eegaysayna waxay aragtay need sida uu ku soo warmaysa muraayadda. Tani waxay ka dhigan tahay inay ogaato in Elliot uu been u sheegay waqtigaas oo dhan welina aysan dhiman. Iyadoo argagaxsan ayay isku dayday inay la dagaalanto laakiin Elliot wuxuu ku muday dawadii taasoo ka dhigtay mid miyir beel ah. Goor dambe qof walba wuxuu isugu yimaaday hoolka aaska si ay u bixiyaan ixtiraamkooda ugu dambeeyay ee Anna. Muddo kadib Paul isna wuxuu ka soo muuqday aaska wuxuuna fasta u geliyay faraantigii ballanqaadka guurkooda. Inta ay tan dhacayso bishimaheeda iyo daboolka indhaheeda ayaa xoogaa dhaqaaqaya. Markaasuu Elliot si walaac leh u go'aansaday inuu xiro naxashka. Kadib markii lagu aasay xabaalaha Paul oo aad u murugaysan ayaa bilaabay inuu cabo khamri badan. Markaas waxa u yimid maamulaha aaska kaas oo Paul uu ku eedeynayay inuu Anna iyadoo nool aasay. Isagoo u jawaabay Elliot wuxuu sheegay inay u badan tahay inuu saxan yahay wuxuuna u sheegay inuu isagu hubiyo. Isagoo xanaaqsan Paul ayaa si kulul ugu falceliyay laakiin ka hor inta uusan weerarin. Elliot wuxuu u sheegay inuusan waqti badan u harin isagoo dareemaya degdega xaaladda. Paul wuxuu kaxeeyaa gaariga dhanka xabaalaha isagoo xawaare sare ku socda.
dhanka kale aana waxay ka soo toostay naxashka dhexdiisa waxayna si waali ah ugu qaylinaysaa caawimaad iyadoo oksijiintu si tartiib ah uga dhammaanayso inkasta uu sarqaansan yahay Paul wuxuu dhex marayaa dhowr baabuur oo jidka socda markaasuu gaaray xabaalaha wuxuuna si degdeg ah u qoday naxashka aana isagoo dibadda u soo saaray isagoo si uun ugu guuleystay inuu dib ula hadlo kadibna waxay u qiratay jacaylka ay u qabto isla waqtigaas Paul wuxuu maqlayaa dhawaaqyo yaab leh aana waxay u sharaxday inuu yahay dhawaaqii maqaska Elliot oo jarjaraya dharkiisa ilbiriqsiga xiga Paul wuxuu is arkayaa isagoo ku jira xarunta aaska iyadoo Elliot uu kor taagan yahay uuna u diyaarinay jirkiisa siduu aana ku sameeyay Elliot wuxuu shaaca ka qaadayaa inuusan marnaba gaarin xabaalaha sababo la xiriira shil baabuur oo uu ku dhintay Paul wuxuu ku doodayaa inuu nool yahay ilaa Elliot uu geliyay qalabka mashiinka meydka si qoto dheer feeriisa dhexdiisa filimkeena Afterlife halkan ayuu ku eg yahay laakiin su'aashu waxay tahay adigu maxaad ka aaminsan tahay inay ahayd mucjiso mise shirqool naxariis daran fikirkaaga nagu reeb qaybta faalooyinka haddii aad ka heshay qaabka aan u falaqeeyay filimkan fadlan like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro sidoo kale ha iloowina subscribe dhaho si aadan u seegin khulashooyinka xiisaha leh ee aan maalin walba soo gelino mahadsanid